kusoo dhawaada ardayda waxbarasho school subjectigan cusub aan bilaabin oo la dhaho statistic. marka statistics aad taqaaniin waxa weeye waa course muhiima. marka videogan hadda aad haysatiin weeyaan videoga ugu horeeya oo aan ku bilaabayno maadada tan loo yaqaano statistic. marka waxaan isticmaalaynaa buugan la dhaho elementary statistics editionkiisii 7aad. waxaana qoray qoraalka loo yaqaano Alan G. Bluman. buuga waxa weeyaan asagoo PDF aad heli kartiin, waadna kasoo download garaysan kartiin Z library-ga. linkiga buugaasna waxaan idin soo dhigayaa Facebook page-keena waxbarasho school, meeshaas aad kala soo degaysaan buugan. marka videogan waxaan ku bilaabayna waxa weeye maadada aadka iyo aadka muhiimka u ah oo statistics loo yaqaano. haddaba waa maxay what is statistic? waa maxay statistic? statistic maxay tahay? statistic waxa weeyaan is the science of conducting studies to collect, organize, summarize, analyze and draw conclusions from data. marka statistic waxa weeyaan waa science of conducting studies to collect, organize, summarize and analyze and draw conclusions from data. marka hore datada ayaad aruurinaysaa, datadaas ayaad habeynaysaa, organize garaynaysaa, waad summarize garaynaysaa, kadibna analysis baad ku samaynaysaa. intaas dhan markaad ku samayso datadii waxaa samaynaysaa conclusions ayaad kasoo saaranaysaa. marka waxaas dhan ayaa waxa la isku dhahaa statistic waa science-kaas oo datada la aruurinayo, la habeynayo, la summarize garaynayo, haddana la taxliilinayo, kadibna conclusions lagala soo baxayo ayaa waxa loo yaqaanaa statistic waa waxaas. marka waxyaalahan baran doono casharada soo socota ku saabsan statistic waa wax uun ku saabsan tallaabooyinka ama collecting ha noqoto, ama organizing ha noqoto, ama summarizing, ama analysis ha noqoto, iyo xataa drawing conclusions. waxyaala waxaas ku saabsan. marka waxyaalo oo key ayaan rabaa inaan define gareeyo, tacriifino. marka descriptive statistic baa ugu horeeya. descriptive statistic waxa weeyaan waa nooc ka mid ah statistics. waa statistic oo ku dhisan collection, organization and summarization and presentation of data. waa consist of collection, waxa ka koobanta marka hore collection, organization iyo summarization and presentation of data. garan marka nooc ka mid ah noocasha statistic weeyaan. datadii waa la aruurinayaa, waa la habeynayaa, waa la summarize garaynayaa, kadibna waa la present garaynayaa datadii. garan slide-ka soo socda waxaan ku baran doonaa nooca labaad oo statistic. laba nooc weeyaan. mid waa descriptive. ereyga descriptive waa macnaheedu waa uu sharxaya, uu faahfaahinaya. marka datadii baad aruurinaysaa, waad habeynaysaa, waad summarize garaynaysaa, kadibna waad present garaynaysaa datadii. variable waa maxay? variable is a characteristic or attribute that can assume different values. waa characteristic ama waa attribute that can assume different values. hadda saad aragtiin مثلا hadda age oo kale, da'da waa wax isbedbedelaya sameeyaan kar oo waxay lahaan kartaa different values oo qofka da'diisa way isbedelaysaa. maanta waxa laga yaabaa inuu jiro 10 sano, muddo kadib 14 saasoo kale 20. marka waa variable because waa characteristic oo isbedelaysa. sidoo kale weight-ka, culayska qofka weight-kiisa wuu ziyaadi karaa oo nuqsaami karaa sameeyaan kar. marka wax isbedelay waa variable. blood pressure-ka sameeyaan kar, blood pressure-ka qofka dhererkiisa. marka wax kasto isbedbedelaya oo value kala duwan lahaanay waxa loo yaqaanaa variable statistic. markii la joogo data data are the values that variables can assume. datadu waxa weeyaan waa value-gaas oo variable ku lahaanayo. marka hebel hadii lagu dhaho hebel height-kiisu waa 170 cm. marka 170 waa data. hada hebel weight-kiisu waxa weeyaan waa 30 iyo
ama 70 kg iska dheh 70 kaas waxa weeyaan waa data Soomaalida garan marka data waxa weeyaan waa valueska ay qaadan karto variable yaashan hadda isbedbedelaysa okay waxa ku yimi random variable waxa weeyaan waa nooc kamid ah variables oo value-giisa oo determined by chance ah يعني value oo aad for sure dhihi karto waxa weeyaan waa intaas ma ah waa variable valueskiisu ay isbedelayaan by chance are determined by chance مثلا هذا كله haddii aad shilinta soo qaadid aad cirka u tuurtid throwing a coin waa variable mugtahay because wuxuu qaadan karaa head ama tail waana hadana variable oo random ma hubtid 100% hadda maanta aad shilin aad tuurtid inuu ku soo baxayo head ama ku soo baxayo tail midkood baa ku soo bixi kara most of the variables were random lama hubo maanta hadduu roob da'o the amount of rainfall were random waxay noqon kartaa 1 milliliter waxay noqon kartaa way ka badnaan kartaa marka waa determined by chance marka random variables were variables or whose values are determined by chance by chance weeyaan wax hubis la hubo inuu values qaadanayo ma aha okay inferential statistic u imo laakiin intaan hadda inferential statistic aan ka hadlin waxaan ku bilaabay horta waxa la dhaho population iyo sample because waxay ku jiraan definitionka inferential statistic marka population waxa weeyaan consist of all subjects human or otherwise human or animals or plants wax uu noqon karaa that are being studied marka adiga markii aad maanta aad sameynayso tijaabin markaad sameynayso waxa weeyaan all the subjects aad baranay aad tijaabintaada ku sameynayso waxa weeyaan ama tijaabintaada sameynayso waxa weeyaan population samadan gara tusaale hadda macallinkii haddii uu rabo inuu ogaado saamaynta ay ku leedahay dadaalka ardayga iyo natiijadiisa iyo natiijada uu ardaygu soo saaray marka ardayga dadaala waxa weeyaan dadaalku dadaalayo saamaynta ku lahaanayso natiijadiisa marka macallinkan samaynayo baaritaankaas waxa weeyaan populationkiisa waa ardayda si guud waa all student way populationkiisa laakiin waad ogtahay way adkaanaysaa inaad arday kastaba intaad natiijadiisa aad fiiriso haddana aad dadaalkiisana aad fiiriso way adkaanaysaa because ardaydu carraday ka badan yihiin sooma marka waxaad samaynaysaa sample ayaad baaraysaa oo ah a group of the subject selected from the population marka ardaydii group ka mid ah ayaa waxaad leedahay natiijadoodana waad ogaanaysaa dadaalkii dadaalana waad ogaanaysaa somadan garan kadib groupkaas aad baaritaanka ku samaysay ayaad wixii kala soo baxa ayaad waxa weeyaan waad tacmiiminaysaa waxa leedahay si guud ardaydu haddii dadaalaan waxa weeyaan natiijadoodana way fiicnaanaysaa somadan garan baaritaankaas natiijadaas ku keentay waxaad samaysay group oo kamid ah ardayda ayaad natiijadooda fiirisay dadaalkoodana waad fiirisay kadib waxa weeyaan populationkaas oo ardayda ayaa waxa weeyaan ayaad ku tacmiimisay Soomaalidan garan marka hada example kan waxa weeyaan populationku waa ardayda sample populationku waa ardayda si guud sample-kuna waxa weeyaan waa group kamid ah ardaydaas Soomaalidan garan sidoo kale example lamidoo kale waa patients dhakhtar baa daawo raba inuu tijaabiyo daawo oo malaria u fiican markaan dhakhtarkan experimentigan sameynaya waxa weeyaan populationkiisu waa all malaria patients laakiin saad aragtihiin way adkaanaysaa inuu all malaria patients oo ku tijaabiyo because arday ka badan yihiin waxa weeyaan wuxuu sameynaya sample oo soo qaadanaya group oo kamid ah malaria patients marka groupkaas uu ku sameynaya baaritaankiisa daawada siinaya markaas uu kolba fiirinaya xaaladooda siday tahay marka hadday xaaladooda fiicnaato wuxuu leeyahay daawadatan waxay u fiican tahay malaria patients oo dhan marka taas waxaa la dhahaa inferential statistic waa consistent waxay ka kooban tahay of generalizing from samples population
inaad tacmiimiso from sample to populations. waxaa kaloo samaynaysa wax la dhaho estimations, hypothesis test, and determining relationships among variables and making predictions. marka sababtaad u samaynayso generalizing from samples to populations iyo estimation iyo hypothesis test waxa weeyaan si aad u ogaatid calaaqada ka dhaxaysa different variables iyo si aad u samayso prediction u samayso. سميدان قرن وأيضا هو part labaad waa nooc ka mid ah statistic waana ayadana aad baa loo isticmaalaa. descriptive statistic waa la isticmaalaa, inferential statistic waa la isticmaalaa. waxyaalahan dhan aad arkaysiin hypothesis test iyo estimations iyo سميدان قرن iyo determining relationships among variables waxaan dhan waxaan ku baran doonaa casharada soo socda. وهاجاك دماتكي عشر كنا يعني معني عشر كسوس على فوق سبسين variables and data types and types of data تاسنا داودا وادمات سنتيهين فيسبوك بيج كنا نقل صعود وحبرشوا سكول يوتيوب channel كأرداد ولا ليه كفايدة سنكرة عشرة statistics لشيء الجرية وإنت ككل مينو 10 كده مع سنتين.